Waxaa la xaqiijiyay in ugu yaraan 100 dagaalyahano oo hubeysan kana tirsan ururka Al-Shabaab ay si qarsoodi ah u soo galeen dalkani Kenya iyagoo qabsaday tuulo yar oo ku taala gudaha kaynta weyn ee Boni ee gobolka Lamu. Waxaa la sheegay in ururkan Al-Shabaab ay dadka deegaanka fikirkooda xagjirnimo ay ka wacdiyeen muddo 30 daqiiqo ah intaysan ka bixin tuulada, iyagoona u dhaqaaqay gudaha kaynta weyn ee Boni. Waxaa arrintaasi ka warbixiyay sarkaalka maamulka deegaanka, iyadoona ciidanka difaaca Kenya ee KDF ay sameeyeen howlgal amni ka dhan ah ururka Al-Shabaab iyo sidii loo xakameyn lahaa falal amni darro oo ka dhaca gobolka. Dhanka kale, dagaalyahanadan Al-Shabaab ayaa weeraray tuulada Mangai oo ku taala 80 kiiloomitir dhanka koonfur galbeed ka xigta xero ciidan oo halkaasi ku taala oo lagu magacaabo PPU Mangai. Weli ma jiraan wax khasaare ah oo laga soo sheegay, laakiin xaaladda deegaanka ayaa ah mid xasaasi ah. Wesley Koch, guddoomiyaha gobolka Lamu, ayaa xaqiijiyay dhacdadan, isagoona sheegay in ammaanka la xoojiyay. Guddoomiyaha ayaa ugu baaqay dadka deegaanka inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka iyo KDF si looga hortago weerarada ururka Al-Shabaab. Xukuumadda Kenya ayaa si aad ah uga shaqeynaysa ka hortagga falalka amni darro ee ay sababayaan dagaalyahanada ururka Al-Shabaab. Si looga hortago weerarada kooxda Al-Shabaab, dowladda Kenya ayaa bishii Sebteembar ee sanadkii 2015 bilowday howlgalka amni ee Linda Boni, taasoo lagu baarayo kooxda Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysanaya gudaha kaynta Boni. Howlgalkaas ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid guul ah. Si kastaba ha ahaatee, ururka Al-Shabaab ayaa dhowr weeraro oo lagu ba'ay ku soo qaaday gobolka Lamu, sida weerarkii dad badan ay ku dhinteen oo dhacay sanadkii 2014. Xasan Nuno Hilowle Xasan Macalimo, raadiyaha iyo telefishinka Danan, xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Ogeysiis farxad leh, haddii aad joogtid dalalka Yurub, xawaalada Galaxy Transfer waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha lagu diro Premier Wallet iyadoo ku gaaraysa daqiiqado gudahood. Ka faa'iideyso fursadan oo lacagaha ugu dir Premier Wallet ehelkaaga iyo dadka jecesha.